maxamed cali boodhigaadhnimadaydii baan hor socon mana dhinac soconina waa daba socon jiray qisooyinka maxamed cali markaan raacno raadkii u maray kama soo noqon jirin meel kaluu ka noqon jiray anna waan daba wareegi jiray markaa wixii dad la joogay oo dhan afar baa ka soo raacay afartaasaa noogu yimid iyo maxamed cali shantaa nin maxamed cali annaga qoladii kale meel ay ku dambaysay anugu warka ma hayo inuu kufay u malayn maayo maxaa yeelay maxamed cali wejigiisu cumaamad buu saa horta u duubnaan jiray weligiiba markuu maqaamka soo fadhiistay anugu waan u galay maxamed cali aabbahay baa yidhi waa maxamed cali waan salaamay magaca maxamed cali baa watay maxamed cali buu magacuu la socday waddada godkaa loo odhan jiray qayb kale oo kamid barnaamijkeena waa joog waa taxanihii halgaama maxamed faarax dalmar ama maxamed cali kolba dadku sida u yaqaanaan waxa maanta martii ah oo ila jooga sheekh axmed sheekh ibraahim suldaan oo ah deegaankii markuu ka tallaabay xuduudka Soomaaliya ee uu tallaabay deegaanka imika loogu magac daray maxamed cali laakiin markii hore loo oran jiray wadada godka laakiin imika waxa loo yaqaanaa maxamed cali sheekh axmed oo kale oo markaa xilligaa inaan yar ahaa maqaamku fadhiistay ama meeshuu fadhiistay waa dadkii casuumay ee uu 10 maalmood la joogay sidoo inoo sheegay maxamed cali mujaahid maxamed cali ilaahay aa u naxariisto wuxuu ahaa nin xaqu dirira buu ahaa wuxuu joogi jiray oo uu noogu yimid meesha la yidhaahdo maxamed cali allahuma salli calaa maxamed wuxuu madax ka ahaan jiray jabhaddii loogu magac daray markaa xoraynta Soomaali galbeed nimanka axmaaradu markaa may soo dhaafsiisnayn jigjiga qoladii markaa la odhan jiray Soomaali waxay iyaduna joogi jirtay kala baydhka intaa u dhaxaysay jabhaddii maxamed cali madaxda ka ahaa ee la odhan jiray xoreynta Soomaali galbeed baa fadhiyi jirtay markaa maxamed cali ayaa wuxuu ka yimid uu ka soo anbabaxay jabhaddii xoreynta Soomaali galbeed uu haysan jiray waxaa jabhaddii uu xukumayey ka soo raacay 4 inan iyo maxamed cali shantaasay ahaayeen waxay noogu yimaadeen meesha la yidhaha maanta maxamed cali kabaabiga loogu magac daray maxamed cali maxamed cali waxaa loogu magac daray geed ay ku hadhsadeen maxamed cali iyo ciidankii watay oo 4 ahaa maxamed cali geedkii uu fadhiistay wuxuu ahaa uu ku nasanayeen geed mirimirya buu ahaa geedka mirimiridii hibalay buu ku yaallaa wuu markii gabalku dhacay way ka soo baxeen maqaam xadratul culya sheekh isxaaq oo maxamed cali ku yaalla ayuu maxamed cali yimid ciidankiisiina maqaamka ayuu yidhi waardiye ka qabto halkii bay fadhiyeen 10 maalmood bay joogeen halkaa 4 inan iyo maxamed cali anigu waxaan ka mid ahay qolada maqaamka joogtaan madax ka ahay anigu waxaanu iswaafaqsiinay haddaba siirooyin ninka halkan inoogu yimid iyo ciidankan u wataa ciidankana waa 4 isna wuu shaneeyey
maxaan ku sheegi karaynaa khulafaa raashimiintii oo afara iyo rasuulullaahi maxamed oo ku shana ninkana maxamed baa la yidhaahdaa waa yahay allaahuma salli calaa maxamed maxamed cali haddana wuxuu kulmistay magicii nebigeenna sala allahu calayhi wasalam iyo sayid cali ayuu haddana kulmistay waa yahay kolkuu muddo 10 cisho aan nala joogay wuu naga anba baxay aniga iyo inan kalaa ka raacnay halkan mukaan la yidhahdaa maxamed cali afartii iyo maxamed cali shantii waan toddobaynay markaa aniga iyo kii baa 7 ka dhignay maxamed cali aniga qorisinka laab uu siiyey markaa qorgiisinka laabka ahaa baan qaatay 7 cisho oo durya dheeru joogay meesha durya la yidhahdo waa halkii saldhiggii SNMta ugu weynaayey ayaan anigu boodigaard ka ahaa maxamed cali boodigaardnimadaydii baan hor socon mana dhinac soconina waa daba socon jiray qisooyinka maxamed cali markaan raacno raadkii u maray kama soo noqon jirin meel kaluu ka noqon jiray anna waan daba wareegi jiray markaa durya iyo gobyarey iyo togo jaalaba waxay u badnayd berigaa gergedo maxamed cali ma mari jirin bannaanka gergadda wuxuu mari jiray gidaarka iyo tiirka berendaha inta u dhaxaysa madowgaasuu mari jiray anna waan ka daba mari jiray 7 cisho markay noo dhammaatay aniga wuxuu igu yidhi qoriga ninkan u dhiib waan u dhiibey bastoolad buu aniga ii dhiibey wuxuu yidhi bastooladdaa hayso adigu dalkii nagu sug maxamed cali sidaan u sugaynay dalkii daasmaanu arag qadarullaahi wuu geeriyooday wuu wafaaday mujaahid maxamed qisadiisu sidaasay ahayd ciidamadii uu xukumayey maxamed cali way islaayeen waxna isku diideen qorshayaal la bixinayay oo jigjiga ka iman jiray oo jaad ahaba isku diideen kadib maxamed cali wuxuu yidhi waar qaybtanayna maalin qaado isku dhiciddu waxay ahayd qaybtii qori qaadanaysay baa maalintii dambe qoladii kala dhacday saasaa dagaalku ku dhacay sarkaalkii xukumi jiray ciidamadii soomaalida ee kala badhka fadhihi jiray ayaa yidhi maxamed cali hubka ka gur ciidanka maxamed cali wuu ka guray qoluu ku yidhi waxaa jira waxbaa jira anigu waxaan gelayaa xabashida ciddii raacaysay raac ciddii kalena reerihiin iska tag kala tegaa joog 4 inan baa soo raacay wixii dad la joogay oo dhan 4 baa ka soo raacay 4taasaa noogu yimid iyo maxamed cali 5 nin maxamed cali annaga qoladii kale meel ay ku dambaysay anugu warka ma hayo maxamed cali halkaasaan ka raacay ilaa durya dheer arruucankaasuu ahaa waa yahay kordhiso liqawanbarkii maxamed cali oo daheeya daqare kaahin ahaa maxamed cali wuxuu yidhi aabbahay oo xadrada fadhiya markuu ugu galay maxamed cali baan ahay ciidan baa ila socda axmaar kaanu u tegaynaa sooriyaanu doonaynaa aabbahay xerow buu u diray daheeye wuxuu yidhi iigu yeedh wuu u yeedhay daheeyaa u yimid waa maxamed cali ciidan baa la socda wuxuu doonayaa sooriyo ayay doonayaan maxamed cali baa markaas waxaa sooriyeeyey daheeye casuumaddii iyo sooriyada halkii bay ku cuneen muu tegin haddaba 10 cishuu nala joogay oo uu meesha daawanayey dadkeyga iyo dalkeyga iyo degaankaba maxamed cali 10 cishuu na dhex fadhiyey waa kaa allaahuma salli calaa maxamed maalintii 11aad wayanba baxeen cid raad guraysay oo tidhi maxamed cali halkan uu joogayna ma jirin cid jaajuus ahayd waa jirtay laakiin ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ayaa aamusiyey oo may odhan maxamed cali geedkaasu fadhiya waa cilmi ilaahay leeyahay boodigaard ahaa oo daba socday ma sheegi karo cumaamad buu duubnaan jiray hoosna wuu foorari jiray raadkiisuu eegi jiray u malayn maayo inuu maxamed cali weligii turunturooday maxaa yeelay qofku hadduu
suulashiisa sidaa ma turunturoodo inuu kufay u malayn maayo maxaa yeelay maxamed cali wejigiisa cumaamad buu saa horta u duubnaan jiray weligiiba markuu maqaamka soo fadhiistay anu waan u galay maxamed cali aabbahay baa yidhi waa maxamed cali waan salaamay gacanta intuu saa ii midicsaday uunbu idhaah usu celiyey gacantana wuu ii soo fidiyey maar ahaaya casaaya gacantiisa laakiin gacantiisaasi casaan bay u egayd nin wejigiisa eegi karaya oo saa u eegi karayena ma jiraba maxamed cali waanu taa wey waan ku hayaa taa deegaanka maxamed cali loo bixiyey ka hor maxaa loo jiray deegaankaa waxaa la odhan jiray waddada godka magaca maxamed cali baa watay maxamed cali buu magacuu la socday waddada godkaa loo odhan jiray maxamed cali ma fadhiistay 10 cisho ma joogay ma ka tegey maxamed cali baa loogu magac daray akabaabigii oo dhan waxaan ugu maqaalaa annagu haddaanu nahay nimanka maxamed cali degan burcaa meel la yidhaahdaa maxamed cali oo meeshaas isay ahayd manuna waa iskuul baa lanagu yidhi waxaan walaalahay oo idinka codsanaynaa maxamed cali mooyaane meel kaloo maxamed cali la yidhaahda ma ogolin haddaanu nahay nimankii u dhex fadhiyi jiray maxaa yeelay taariikhdaa ka horreysay magacayagaa ka horreeyey annagaa ugu magac darnay annagu maxamed calina dhex fadhiyi jiray qaybta bariga wuu ka dhashuuna ahliyaddiisu halkan ay ahayd markaa waxay yeelaysaan ha laga daayo magacaasaan leehay ha laga daayo oo dardaaran wasalaamu calaykum xilliga xaaladii deegaanku sidee xaaladda deegaanku markaa way kacsanay oo maxaa yeelay laba dawladood oo diriiraya dhexdoodaanu fadhinay ama maxamed caliba ciidankiisu yiile meesha xaaladdu xaalad adag bay ahayd ilaahay wuxuu qadaray markii dambe in labadii kala guuradii baa ka dhacday xaggaana u raradii ciidankii SNM ee maxamed cali uu ku biiray gudahay soo galeen xaaladdu sidii bay dawlad maanta ku tahay deegaankii maanta wuu fiican yahay wuu barwaaqaysan yahay allahuma salli calaa maxamed maanta nabadgelyaa taalla cid waloo saldhiggii maxamed cali soo tay istidhaahdaa waa tagi karaysaa maanta muddo dhexdii ahayd way adkaatay si loo tallaabo cawil baa igu yidhi inaanu nimaad baanu doonaynaa ha imaninaan ku yidhi anigaan ku yidhi laakiin maanta waa la tegi karaa waa lasoo baabuur baa la kaxaysan karaa waa la soo noqon karaa maanta way tegi karaynaa waan idiin sheegayaa artiistaynu soo kaxayn doonnaa maqaamka iyo geedka iyo ballaygii sheekh isaxaaq oo isku wada qoofalan baa artiistuu soo sawiri doonaa meel kasta ku dhejista taariikhda ma garatay xaaladda maanta deegaanku aad bay fiican tahay laakiin waxaan ku jirnaa wakti jiilaalaho ilaa guguda-o dayrtu barigeenna way ka curatay xaggan kama curan halkaa waxaan ku hakinaynaa qayb kale oo ka mid ah barnaamijkeenni waa joog inta barnaamijka mid lamida ku kulmi doono waa aniga iyo cabdirasaaq fi amaan illah